السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة قيمة بدن كسر مقال عصوب أبيكتيج هديات channel كعصوب تهاي وحن كلها هاي سبسكرايب نصار هذا أنا اللي جبت يا صحتي هراي أنت السنة نرسل سوي channel بليز أدينا مقال كلا يكري أصحاب تدنا اللي سوي ذاك الدول اللي يرادو وأنت مقال كنا وحن كو أي جدونا maaragtay fariimo badan oo dad badan isu weydiiyay oo maaragtay page experience sida loo sameeyaa classical web arkeen laakiin experience marka waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin ayaa markaas isla eegi doona hadduu alla yiraahdo ugu horeyn marka aan isla aragno fariimaha ee qolada facebooka insha Allah fariimahaas aan fiirin doonaa okay markaan hadda waa kina about the new page experience marka haduu u maaragtay page kaaga experience uu yahay waxyaalo oo qolada Facebook oo ogolaanayso waaye wax codsi la dirsanayo wax nidaam loo marayo oo kale yimaahan wuxuu ku dhahaa the new pages experience page-da cusub oo experience is not available ma la heli karo for all pages yet dhammaan pages-yada dhamma helaan laakiin dad qaar ay iyagu soo fasaxaan ogolaansho ay soo siiyaan qaab ogolaasho ah qoraalkana ku akhrin doontaa haduu ilaahay yiraahdo hadaad u baahan tahay website-kan inaad u booqatid waxaad ku qori doontaa Facebook page experiences kadibna linkiga ugu horeeya ayaa ku dhufan doontaa marka qaabkan ayuu kuugu sharxayaa sidoo kale faahfaahin dheer classicalka marka waxyaalo ay kala duwan yihiin waxa classicalka hadda isticmaali jirtay ilaa iyo ka dhaha maaragtay switch now ama ilaa ka dhahan page switch now page manage switch ilaa kaaga dhahan ina u bedeshid marka maanta muuqaalkeena anaka wuxuu ku xiran yahay page oo classical ah inaan maaragtay idin tusiyo iyo page experience ah haduu alla yiraahdo bal waan isla arki doonaa muuqaalka faahfaahsan aan ku dhex arki doonaa haduu alla yiraahdo aan isla bilaawno marka muuqaalka faahfaahsan ugu horeyn horta waxa tagi doona Google Chrome Google Chrome ay browser oo markaas mobilka ku jira isticmaali doonta kadib intaadan oo horay u sii gelin ama searching-ka ku dhan saddexdaas dhibcood ayaa tagi doonta saddexda dhibic marka tagtid waxaad ku xuli doontaa qaybtan ay ku qoran tahay desktop site qaab computer ahaan ayaan ka dhigi doonaa desktop site inuu dooran yahay marka qaybta sare ayaad ku qori doontaa Facebook www.facebook.com ay ku qori doontaa website-kaas marka sidana ugu qortid ciwaankaaga hore waa kacsanaysaa ana hadda uu kacsan yahay ciwaankaaga waa in casharka aan ku bixiyo haduu alla yiraahdo sida markuu noqdo kadibni pages-ka iyo uu kala saaraya qaybtan sida kaaga muuqato waa pages-ka kuwan waa wuxuu yahay page experience uu yahay waxa rabnaa inaan ka dhigno classical marka waxaan ku dhufan doonaa ciwaanka nimcaan duceysane sidoo kale marka sida halkan kaaga muuqato waakina meeshan hadda sida kaaga muuqato follow-ga fiiri waakina likes-ka waa 6.7 following intuu follow gareeyno 1.9 following marka insha Allah sidan ayuu yeelaa marka hadda kan waakina waa switch into nimcaan duceysane page start managing it kan hadda waxaan u manage gareyn doonaa qaybtan hadda switch now ay ku qoran tahay ayaan ku dhufan doonaa switch now marka ku dhufano inaan classical soo celinaa rabnaa haduu alla yiraahdo okay switch now ku dhufanay israadinaya waxa loo dhahay your page activity is now separated from your profile button on this profile figures can help you make the most of nimcaan duceysane you can change them at any time in settings shay walbo setting-ka bedel use page ayaan dhahnay okay page-keena hadda sidaan ayuu yahay okay daqiiqada kadib iyo saacada dheeri kadibna waxaan rajeynaynaa inaan maaragtay classicalka u celino okay sida markuu yahay hadda qaabkan waaye meeshan marka waxaan ku dhufanayaa ay ku qoran tahay inaan maxaa rabaa classical u celiyo
inta option aan rabaa inuu iga soo qabto waa kaas page hadda optionkiisa uu ii dhameystiran yahay sida halkan maaragtay kaaga muuqato ani hadda switchna waxa u dhahay waxay tahay inaa maaragtay page aan kala aqoonsado inuu classical yahay iyo inuu maaragtay page experience yahay kan marka hadda page experience waa waxaan ku aqoonsan karaa haddaan ku soo dhaweeyo oo saddexdan dhibcood ayaa tagi doontaa oo right corner-ka kaaga muuqo saddexdaas dhibcood markii ku dhufatid sida halkan kaaga muuqato wuxuu ku soo qaadayaa calaamadan oo arrow-ga ah filaarta ah wuxuu ku dhahayaa switch the classical page u laabanayna marka sida halkan kaaga muuqato classical page okay I understood okay mar continue ayaa leeyahay sida halkan kaaga muuqato waxaan optionadan waxa waaye siduu classical page-ka ugu laaban lahaa continue kale ayaa leedahay okay continue ayaan leeyahay kadib haddana waxaa leeyahay continue dhahay marka switch back to the classical pages kan waxaa loo celin doonaa classical page kadibna switch back ayaan dhihi doonaa hadduu alla yiraahdo sida halkan kaaga muuqato waxaa sugi doontaa 1 minute kadibna insha Allah uu isbedelayaa si toos ayuu classical page u noqon doonaa hadduu alla yiraahdo sida halkan kaaga muuqato okay sida halkan kaaga muuqato refresh ayaan dhahayaa refresh markaan dhaho uu israadinayaa wuxuu rabaa in classical page uu ka bedelo oo page caadi uu naga dhigo marka waa kana sida halkan kaaga muuqato page-ka uu inoo bedelay oo page caadi ayuu ka dhigay waa kaas haddii aan inta tago profile-ka caadi uu ku tusinayaa marka waa kana noocan si dooro ku dhahayaa classical-ka waa laga bedelay oo okay classical-kii waa laga bedelay saa ujeedada halkan kuguma qorno waa kana marka wuxuu dhahay create new ad view simple service marka haddii aad u baahan tahay waxyaalaan waa la xiriir waa sii wadi kartaa continue ayaa dhihi doontaa sida halkan kaaga muuqato wax oo markaas bedel kale oo ka muuqato mala marka aan fiirino marka setting inagee okay sida halkan kaaga muuqato homepage ayaan soo laabtay marka profile-ka fiirin doonaa profile-ka ku dhufo marka mujeeda inta hadda waxa leeyahay follow si waxa arki doontaa follow qof soo dhahay switch account hadii ku dhawaata account kale cusub leeyahay oo maaragtay Facebook iyo kale oo asxaab kamid ah aan u sameynay marka sidaas hadda muuqaalkan hadda kan waxaan ka dhignay sida hadda page-ka ku tusiyo wuxuu ahaa experience ahaa hadda waxaan ka dhignay classical sida halkan kaaga muuqato classical waxa uu kaliya ku muuqanaa follow-ga sida halkan haday waxaan ku soo dhameeyay waa likes iyo following hadda kan wuxuu noqday follow oo kaliya hadduu alla yiraahdo marka taas ayaan idin tusinayay sidoo kale si aan idin qanciyo page experience inuusan jirin oo idin tusiyo account-ka okay page-kan kale ayaan soo kiciyay sida halkan kaaga muuqato sida aan mujeeda Cabdiqaadir Rabbaani fiiri asxaabta waxa idin tusinayaa page experience qaabku noqonayo iyo qaabku isku bedelayo waayo profile-kaaga magac kugu qoran hataa maaragtay si fiican uma arkaysid hadda kan haddii maaragtay switch now aan dhaho Cabdiqaadir Rabbaani page-kii waaye asiga ayaa kacayo bal waan isla fiirin doonaa switch now okay switch now markaa dhahay waa kana page experience sidan ayuu ku soo qabanayaa Cabdiqaadir Rabbaani haddii oo maaragtay markaas aan dhahno isagana waan bedelaynaa waxaan sameynaynaa classical oo celinaynaa waa qaabkii haday oo meeshan ayuu nagu soo qoray hadduu alla yiraahdo bal yaanan hadalku gudaalinin please sida channelkan ku cusubtaa subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan in la gareeyo haddaad naga mid tahay asxaabtii hore nala joogta aad ka mid tahay please waxa ku leeyahay asxaabtaada la sii wadaag waayo baahidaadii aad u qabtid mid ka daran walaalkaaga walaashaada iyo inta familka la xiriirto ayaa u baahan
maxaan ku leeyahay marka intaan kulmi doono muuqaal cankaan oo kala waxaan idinkaga tegi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. See you another next video inshallah. Goodbye. waqtigiinana ka faa'iideysta dhammaanteennaba inshallah.